xafladda qalinjabinta dufcadda 24 ee jaamacadda Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kambaska weyn ee jaamacaddu ku leedahay degmada Daarusalaam ee magaalada Muqdisho. xafladdan oo si heersare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda Muqdisho, waalidiin, arday, qalinjabinaysay iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay diiwaanhayaha guud ee jaamacadda Muqdisho Cabdulqaadir Cabdi Nuur Barre asagoo furay qalinjabinta kuna dhawaaqay qalinjabinta ardada sanadkaani jaamacadda dhameysay tiradooda waxay gaaraysaa 1,065 arday oo isugu jira 8 kulliyadood iyo 26 takhasus waxayna kala yihiin 528 arday oo boqolkiiba ka ah 49.6 waa gabdho. sidoo kale goobta waxaa ka hadlay agaasimaha xafiiska qalinjabiyaasha jaamacadda Muqdisho Sayid Cali Xuseen Gaabane. waxaa sharaf ii ah haddii aan nahay bahda alumnayga ama bahda qalinjabiyaasha jaamacadda Muqdisho in aan idinku soo dhaweyno qoys aad iyo aad u ballaaran oo dadka ka jaamacadda Muqdisho ama qoyskaas uu kor u dhaafayo ilaa 16,000 oo qof. sidoo kale waxaa meesha ka hadlay oo asagana kelmadiisa qaatay gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr. Ibrahim Maxamed Mursal. qalinjabinadii hore hoteelaan ku qaban jiray ardada in badan oo kamida iyaga oo raba inay farxaan oo waalidkood la farxaan baa la dhihi jiray hoteelka laga baxo. maanta go'aan waxaan ku gaadhnay inaan kambasi weynaa jaamacadda dhammaanteen aan ku dabaaldegno ood iska leedihiin idinka iyo waalidkiin oo waqtigaad maanta rabtaan oo dhan aad joogaysaan ilaa inta laga gaadhayo 5 galabnimo aad maanta halka joogi doontaan insha Allah taala ciddii rabta. maanta maalin hadal ma aha, waa sidii la sheegay, waa maalin hambalyo, waa maalin farxadeed, waa maalin xusuus loo dib dhigan doona carruurtaad dhali doontaan iyo kuwaad dhasheen iyo kuway sii dhali doonaan. sawirka aad maanta iska qaadaan ay xusuus u noqon doonto. waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo annaga iyo waalidiintii idin dhashay iyo waalidiintii waxay idin soo bartay labaduba laba waalid labadooduba ay idin garab taagan yihiin oo idinla qaybsanaya. waa maalin aad iyo aad qiimo weyn inta maanta qalin bedelanaysa iyo waalidiintoodu labada dhinaciiba ay aad iyo aad ugu weyn. waxaan rabaa hambali iyo bogaadin inaan u soo jeediyo halkan waalidiinta sharafta leh ee carruurtan ama dhallinyaradan ama madaxdan midii la yidhaahdo labadaba waa la soo yidhiye madaxda maanta aan u dabaaldegayno waalidiintii nagu garab taagnaa muddadayna la joogeen. hadday 4 sano tahay, hadday 5 sano tahay, hadday 6 sano tahayba intaba maanta dadka qalin bedelanaya ayay ku jiraan arday 6 sano ah, kuwa 5 sano ah, kuwa 6 sano ah. waalidiintii dhinacooda ka taagnaa ayaan leeyahay hambalyo mahad ballaadhanna waa idiin celinaya. ardayda qalinjabinaysa ee dufcadda 24 waxay isugu jireen arday ka qalinjabinaysay qaybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacadaha Muqdisho. qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabinaysay ayaa iyagu waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan munaasabadda qalinjabinta. magaciigu Cabdi Nuur Macsan waa saa sheegtay maanta oo taariikhdu ay tahay 24 Oktoobar oo maalinta qalinjabinteeda aniga iyo saaxiibadeeda bahda dufcadda 24 ee jaamacadda Muqdisho maalin inoo gaar ah waan kaga mahadcelinaynaa inaan nagala soo qayb gashaan maalintan. dadaalkan ilaa inta aqliyeystay yani waa waday waxbarashada heerarkeeda kala duwan haddii aan lahayd dugsi quraan, haddii aan lahayd iskuul iyo hadda oo ay tahay jaamacad. waan rajaynayaa inaan sii wado oo heerarka kale ka dhiman waxbarashada inaan sii gaarsiiyo iyo aqoonta aan bartay oo hadda aan jaamacadda Muqdisho ka dhaxlana inaan wadankayga dib ugu celiyay intii aan karaay. jaamacadda Muqdisho waa jaamacaddii ugu horeysay ee laga furay wadanka burburkii kadib waxa ay soo saartay kumanaan arday ah oo adeegyo kala duwan siisa bulshada Soomaaliyeed.
ardayda maanta qalin jabinaysay waa dufcadda 24aad ee jaamacadda muqdisho ka baxay iyadoo dufcaddii ugu horeysay ee jaamacadda ay ka qalin jabisay 2001 usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas